moogtahay inay kuwan yihiin saddex shay oo ku cadaynaya in Japan ay ku nooshay adduun kale. kow ugu horreyntii gudaha dhakhaatiirta dalka Japan waxay isticmaalaan qalab la yaab leh kaasoo ay ku raadinayaan xididadaada markay ka qaadayaan dhiigga si ay u raadiyaan xididkaaga. neerasku kaliya waxay ku qabanaysaa mashiinkeeda ku muuqda gacantaada waliba qaybta maqaarka, kadibna waxaa soo muuqan doona dhammaan sawirada xididada oo dhan, waxaana si fudud lagu gelin doonaa irbadda dhiig ayaana sidaas lagaga qaadi doonaa. laba midda xigta dalka Japan shirkadda Hyundai ee soo saartay gawaadhida waxay soo saartay wheelchair cajiiba, waxaadna ku maamuli doontaa jirkaaga wheelchairkan adiga oo ku taaban gacmahaaga, waxaana ugu magac dartay Uni1. waxaadna kaliya isku janjeedinaysaa dhinaca aad rabto, waxaadna u dhaqaaqaysaa hore dib amba xitaa dhinac, mana taabanaysid gebi ahaanba. taasoo kaliya ma ahan daawade, xitaa wuxuu isku dallaacayaa dhinaca sare si aad si fiican wax ugu arki karto. soo la yaab maaha daawade. saddex ugu dambeyntii dalka Japan xitaa dallaayaduhu way ka duwan yihiin dallaayadaheena caadiga. tani waa baaskoolada biyaha oo dallaayada ma ahan oo kaliya inay kaa ilaalinayso qoyaanka xilliga roobka, balse waxay kuu ogolaanaysaa inaad dagaal biyaha ku gasho. kaliya geli afka hore dallaayada biyaha, kadibna gadaal u soo jiid gacantaada, kadibna riix si aad u buufiso. masaafada uu gaaraya waa mid waaliya. dallaayaduna waxay ku tahay gaashaan iyo daafac labadaba, waana hubka ugu madadaalada badan maalinta uu roobku daayo. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo saddexdaa shay aan soo sheegay midkeeba xoo kaaga yaabiyey? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad filow noo saarto youtube-ka iyo facebookka profilka saarana aad subscribe dhahdo.